Xalqadda toddobaad waxay ku bilaabanaysaa aroor hore. Joyan aad ayay u faraxsanayd waayo waxay doonaysay inay aragto saaxiibkeeda Suhon. Isla markay guriga ka baxdayba waxay aragtay Suhon oo albaabka hortaagan oo sugaya. Markaasay gacmaha isqabsadeen oo dugsiga wada aadeen. Dugsiga dhexdiisa, Suujin waxay si ula kac ah ugu dhowaatay gabar ku cusub dugsiga oo la yiraahdo Haimin, sababtoo ah Haimin iyo Joyan isku dugsi ayay ka yimaadeen. Kadib markii Joyan ay sagootisay Suhon, Suujin ayaa dib ugu yeertay Joyan. Joyan markay soo jeesatay waxay aragtay laba qof oo ku soo socda. Way naxday, ma aha inay gabadha horteeda joogta ay fool xun tahay, laakiin markay aragtay gabadhaas waxay Joyan soo xasuusatay xilligii dugsigii hore loogu cagajuglayn jiray. Gabadhaas ayaa xitaa ag istaagtay oo sawir ka qaaday. Joyan waxay gabadhan u aqoonsanayd saaxiibteeda ugu dhow hadda ka hor, laakiin Joyan ma garanayn sababta ay saaxiibteed ula dhaqantay caynkaas. Haimin ayaa weydiisay Joyan magaceeda. Isla xilligaas, Suujin wejigeeda waxaa ka muuqday qosol xumaan ah. Joyan way iska indha tirtay Haimin waxayna ka haysay Suujin. Haimin oo fiirinaysa dhabarka labada qof ee sii socda, ma hubin in Joyan ay tahay saaxiibteedii hore, laakiin Joyan waxay ogeyd in waxaas oo dhan ay Suujin qorshaysay. Suujin waxay rabtay in wixii hore ee Joyan ku dhacay ay dugsigan dib ugu soo noqdaan. Habeenkaas Suujin waxay raadisay gabadha iskuulka ugu quruxda badan, taas oo Joyan la dhigata. Suujin iyo gabadhaas waxay isku raaceen in Joyan ay tahay gabadhii foolxumayd ee waagii hore. Waxay taksi u raaceen guriga Joyan si ay u helaan oo ay u bahdilaan, laakiin waxaa si kedis ah u arkay Han Si-jun oo meesha maraayay. Markay yimaadeen guriga Joyan, Han Si-jun ayaa gees u jiiday. Gabadhii iskuulka ugu quruxda badnayd waxay u malaysay in Joyan iyo Han Si-jun ay isjecel yihiin, markaasay tustay Han Si-jun sawirka Joyan oo make up laan ah. Waxay u haysteen in Han Si-jun uu naxi doono, laakiin Han Si-jun wuxuu yidhi, indhahayga, Joyan way ka qurux badan tahay dadka idinka oo kale ah. Kadib taleefankeedii ayuu ka qaatay oo dhulka ayuu ku jajabiyey. Han Si-jun wuxuu uga digay haddii ay ku dhiiradaan inay dhib u geystaan Joyan, inuusan u naxariisan doonin. Maalintii xigtay, markii Joyan ay dugsiga tagtay, qof kasta wuxuu ku fiirinayay indho la yaab leh. Markay fasalka gashay, gabar ayaa weydiisay, waxaan ma dhabbaa? Kadibna waxay tustay taleefanka. Joyan waxay aragtay muuqaalkeeda oo make up laan ah oo la faafiyey. Isla xilligaas, Joyan waxay dareentay in cirka uu ku soo dumay. Markay aragtay dadka oo wada dhaleecaynaya, Joyan naxdin darteed ayay banaanka ugu carartay. Han Si-jun wejigiisu aad ayuu u caraysnaa xilligan. Si kedis ah, Joyan waxaa joojiyey koox gabdho ah, geesna waa ay u jiideen. Haimin ayaa aragtay oo cabsatay. Kadib waxay Joyan u jiideen dhanka musqusha, waxayna bilaabeen inay wejiga kaga tirtiraan make upka si ay u arkaan sida ay u fool xun tahay. Isla xilligan, Suhon ayaa soo gaaray oo joojiyey. Joyan way u dulqaadan weyday bahdilkaas, markaasay mar kale carartay. Suhonna si waali ah ayuu uga daba orday. Dhanka kale, saaxiibkii cayilnaa ayaa u tagay Han Si-jun wuxuuna tusay muuqaaladii hore ee Joyan. Han Si-jun markiiba wax buu ogaaday. Joyan walaalkeeda ayaa maqlay arday xamanaysa walaashiisa, markaasuu u dulqaadan waayey. Wuxuu u soo orday dhankooda wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo, inkastoo laga xoog badnaa. Isla xilligan, Han Si-jun wuxuu aaday dugsigii hore ee Joyan wuxuuna raadiyey gabadhii iskuulka ugu quruxda badnayd. Wuxuu si weyn ugu qayliyey isagoo leh, muuqaalka waa inaad tirtirtaa. Gabadhii iskuulka ugu quruxda badnayd waxay tidhi, anigu ma ihi qofka muuqaalka soo dhigay. Han Si-jun wuxuu weydiiyey gabadhii iskuulka ugu quruxda badnayd, haddii aadan adigu ahayn, haddaba waa kuma? Waxay Han Si-jun ka codsatay inuu ka fikiro qofka dhab ahaan u yaqaana aqoonsiga dhabta ah ee Joyan. Wuxuu ku laabtay fasalkii wuxuuna si toos ah u aaday dhanka Suujin. Si uusan u dhaawicin saaxiibtinimadooda fasalka dhexdiisa, Han Si-jun si toos ah waxba uguma dhihin ardayda hortooda. Beddelkeeda, wuxuu Suujin u soo bixiyey bannaanka, wuxuuna weydiiyey sababta ay qof xun u noqotay. Han Si-jun wuxuu ku amray inay muuqaalka si degdeg ah u tirtirto. Suujin ma inkirin inay iyadu samaysay. Waxay xitaa tiri in iskuulka oo dhan uu arkay muuqaalka, tirtiristuna aysan waxba ka beddelayn xaaladda. Han Si-jun wuxuu Suujin u sheegay inay u malaynayso inay Joyan burburinayso, laakiin dhab ahaantii ay iyadu isburburinayso. Macallimiintuna sidoo kale way ogaadeen arrintan. Markii macallinkii fasalku yimid oo uu arkay ardayda oo Joyan ku xamanaya, wuu ishayn waayey oo wuu canaantay. Macallinku aad ayuu uga xumaaday wuxuuna weydiiyey ardayda sida ay ugu qosli karaan muuqaal muujinaya saaxiibadood oo la dhaawacayo. Ardaydii oo dhan way aamuseen. Joyan waxay isku soo xirtay qolkeeda maalin dhan. Aabaheed ayaa ka codsaday inay wax cunto, laakiin way diiday. Markaasuu aabaheeda keenay qaab kale, wuxuu bilaabay inuu hilib ku dubo qolka Joyan horkiisa. Urta hilibka ayaa buuxisay qolka. Tani waxay ahayd qaabka uu aabuhu u muujinayay jacaylkiisa xooggan si ay gabadhiisu u soo baxdo. Dugsiga dhexdiisa, Han Si-jun walaashiis waxay raadisay maamulaha dugsiga waxayna ka codsatay in loo ogolaado inay qoraal soo dhigto. Han Si-jun ayaa si kedis ah u arkay walaashiis oo la dhibaayo. Markuu damcay inuu badbaadiyo, waxaa ka hormaray Joyan walaalkeeda. Inkasta oo uu rabay inuu badbaadiyo gabadha uu jecel yahay, jirkiisa oo daciif ahaa awgiisa, xitaa ma uusan u dhigmi karin qaylada Han Si-jun. Han Si-jun ayaa dadkii ku qayliyey inay aamusaan. Isagoo arkay in Joyan walaalkeeda uu aad u faraxsan yahay, Han Si-jun wuxuu ka caawiyey walaashiisa inay istaagto. Sheekadooda kadib, dadkii waxay ogaadeen in Jiwon ay tahay Han Si-jun walaashiisa, aad bayna u naxeen. Han Si-jun wuxuu qabtay maamulihii, isagoo isticmaalaya quruxdiisa ayuu ku qanciyey in muuqaalka la tirtiro. Isla xilligaas, macallinkii fasalka ayaa ballan la qaatay hooyada Joyan wuxuuna tusay muuqaalka gabadheeda lagu dhibaayo. Hooyadu way rumaysan weyday inay gabadheeda tahay qofka muuqaalka ku jira. Markaasay ugu dambayntii fahantay sababta ay Joyan maalin kasta make up ugu soo marsato dugsiga. Habeenkii
habeenkaas Joyan waxay aaday inay soo raadiso Suujin. Joyan ma filayn inay Suujin noqon karto maadaama Suujin ay ahayd qofka kaliya ee wejigeeda dhabta ah ogaa. Markii ay ishor istaageen Suujin way qiratay inay iyadu falkaas geysatay. Suujin ayaa guriga gashay iyadoo Joyan kaga tagtay xanuun iyo qalbi jab iyadoo isweydiinaysa sababta saaxiibteedii ugu dhoweyd ay u dhaawacday. Markii ay Joyan guriga ku laabatay hooyadeed ayaa si xoog leh laabta u gelisay. Walaasheeda ayaa u sheegtay inay hooyadeeda dugsiga tagtay. Hooyadu waxay ku canaanatay Joyan sababta aysan ugu sheegin dhibka haysta oo ay keligeed u dhibaatoonaysay. Hooyadu waxay go'aansatay inay Joyan u kaxayso qaliinka qurxinta. Dhakhtarkii ayaa sheegay in qaliinka wejigu uu ku kici doono $100 milyan. Hooyada Joyan waxay tiri inta gabadhaydu ay noqonayso quruxley lacag kasta oo ay ku kacayso dhib ma leh. Qorshuhu wuxuu ahaa inay dadkoo dhan ka masayraan. Markii la tusay muuqaalka u dambeeya ee qaliinka kadib hooyadu waxay markiiba aragtay in wejigani uu aad ugu eg yahay muuqaalka Joyan marka ay make-up marsato. Hooyadii waxay isweydiisay maxay qaliin ugu baahan tahay. Make-upka Joyan ayaa ka fiican qaliinkan. Markaasay Joyan gacanta qabatay oo ay goobtii ka baxeen. Markii ay gaariga ku laabteen hooyadu waxay damacday in gabadheeda ay u wareejiso dugsi kale oo aan laga aqoonin si aysan u dareemin nacaybka asxaabteeda ee ku aadan muuqaalkeeda. Habeenkaas Suhon ayaa u yimid Joyan wuxuuna u sheegay inuu jecel yahay sababtoo ah quruxda dhabta ah waa tan gudaha muuqaalka korena uusan waxba ka dhignayn. Markii uu Joyan guriga geeyey Suhon wuxuu soo xasuustay sidii ardaydu u dhiirigelin jireen markaasuu dukaankii buugaagta iska duubay isagoo dheelaya si uu dareenkiisa ugu muujiyo Joyan. Joyan markay muuqaalkaas aragtay wejigeeda waxaa buuxiyey dhoola caddayn. Dugsiga waxaa si lama filaan ah uga daay baraf. Ardaydii waxay arkeen Joyan oo socota dhammaantoodna way naxeen. Waxay arkeen Joyan oo dugsiga soo gashay iyadoo aan wax make-up soo marsan. Ardaydu sidii hore uguma qoslin waayo markan Joyan waxay ka guulaysatay cabsidii ay ka qabtay nafteeda. Waxay isku dayday inay sii wado dhoola caddaynta ardaydiina si diiran ayay u salaameen. Si kedis ah saaxiibteed ayaa bannaanka u oroday Joyanna way ka daba tagtay. Isla xilligaas waxay aragtay gabdhihii hore u dhibi jiray. Cabsidii hore darteeda Joyan waxay ku dhuumatay musqusha laakiin gabdhihii ayaa gudaha u soo galay. Waxay ku hadleen hadallo xun iyagoo leh gabar fool xun oo Joyan oo kale ah uma qalanto Suhon. Hadalladii xumaa ayaa maskaxda Joyan ka guuxay laakiin markii ay gabdhihii baxeen waxay isweydiisay maxay tahay sababta aan uga cabsanayo. Markaasay si caraysan uga daba oroday waxayna ku amartay inay dib u ceshadaan hadalladii xumaa ee ay yiraahdeen. Gabdhihii waxay la yaabeen halka ay Joyan geesinimada ka keentay. Joyan waxay si hami leh ugu tiri waxaan shukaansadaa Suhon waa saaxiibkay. Waxay kaloo u sheegtay in Suhon uusan ahayn qof kaliya muuqaalka fiiriya dhibna aysan ku haynin si kasta oo ay u muuqato. Waxay ugu hanjabtay haddii ay mar kale maqasho iyagoo iyada iyo Suhon xamanaya inay cashar u dhigi doonto. Ardaydii oo dhan waxay ku ammaaneen Joyan geesinimadeeda. Suhon oo maqlayay hadalladeeda ayaa dhoola caddeeyey. Markii ay Joyan gabdhihii ka fogaatay waxay aragtay Suhon oo ku soo socda. Dadkii oo dhan hortooda Suhon wuxuu Joyan kaga dhunkaday foolka kadibna laabta ayuu geliyey isagoo timaha u salaaxaya. Warkani wuxuu ruxay dugsigii oo dhan waxaana si cad loo ogaaday in Suhon iyo Joyan ay yihiin lamaane isjecel oo aan waxba u dhexaynin. Ardaygii ugu dhibcaha sarreeyay iskuulka wuxuu dhab ahaantii jacayl u qaaday gabadhii foolxumayd. Labadoodii oo gacmaha ishaysta ayay fasalkii ku laabteen ardaydiina aad bay u naxeen. Suujin aad bay u caraysnayd waayo dhammaan shirqooladeedii way fashilmeen. Dugsiga kadib Suujin waxay mar kale raadsatay Joyan waxayna weydiisay ma wejigan ayaad si ula kac u soo muujisay si aad naxariis u hesho. Intaysan hadalka dhammayn waxaa soo baxday in Suhon uu horay u ogaaday in Suujin ay tahay qofka muuqaalka soo dhigay. Maalin hore markii Han Si-jun uu Suujin bannaanka u soo saaray Suhon ayaa ka daba dhuuntay oo maqlay hadalkooda. Suhon wuxuu islahaa malaha Suujin way raaligelin doontaa Joyan laakiin markii uu maqlay hadalkeeda dambe aad ayuu u xanaaqay oo uu iska tegay. Joyan ayaa Suhon ka daba oroday waxayna ku qabatay garoonka kubadda koleyga. Waxay ku tiri waa qaladkayga inaan kuu sheegi waayo waxaan ka cabsaday inaan lumiyo saaxiibtinimadaada. Laakiin Suhon wuxuu ka xanaaqsanaa sababta ay Joyan wax walba Suujin ugu sheegtay iyaduna u qarisay. Ugu dambayntii ismaandhaafkii waa la xalliyey labadoodiina si adag ayay isugu soo laabteen iyadoo dadkii hareeraha joogay ay la yaaban yihiin. Dugsiga kadib Suhon iyo Joyan waxay tageen wadada dhinaceeda si ay u soo iibsadaan digaag. Markaasay arkeen gabadhii qurxanayd oo dhibaysa Haymin. Joyan markaan uma dulqaadani waxayna ku tuurtay cuntadii gabadhii quruxda badnayd taas oo keentay in dagaal weyn uu ka qarxo meesha. Joyan, Suhon iyo Haymin waxay bilaabeen inay la dagaalamaan kooxdii. Inkasta oo Joyan aysan xirfad dagaal lahayn haddana xanaaqii ay u qabtay dadka dhibi jiray ayaa xoog weyn siisay. Waxay bilaabeen inay timaha iska jiidaan waxaana u yimid gabadhii gacan yaraheedii. Isla markaas waxaa soo baxay Han Si-jun saaxiibkiisii cayilnaa. Isagoo isticmaalaya dhererkiisa iyo miisaankiisa oo ku dhow 100 kiilo ayuu ku qayliyey kooxdii gabdhaha ahaa kuwaas oo cabsi darteeda la cararay. Dagaalkaas kadib saddexda gabdhood waxay noqdeen saaxiibo dhow oo wax walba iska waraysta. Markii ay guriga ku laabatay Joyan aad bay u dhibaataysnayd waxayna rabtay inay Suhon soo wacdo laakiin hurdadii ayaa la tagtay. Suhon dhankiisa wuxuu sugayay wicitaanka Joyan tan iyo habeennimadii isagoo isleh malaha taleefankeeda ayaa xumaaday markaasuu wacay saaxiibkiisa laakiin wiilkii oo jiifay ayaa aad u carooday oo taleefanka ku damiyey. Aroortii hore Joyan ayaa Suhon soo wacday laakiin Suhon oo habeenkii oo dhan soo jeeday ayaa hurdadii ka adkaatay isagoon dareemin in la soo wacay. Markaas kadib Joyan waxay aaday dukaanka hooyadeed ee lagu habeeyo sunniyaha halkaas oo ay ku ogaatay
in hooyadeed ay si qarsoodi ah ugu diiwaangelisay casharo ku saabsan barashada make-upka dhabta ah. Joyan aad ayay u faraxday markay ogaatay in hooyadeeda ay u qortay casharada make-upka, waxayna u carartay dugsiga iyadoo faraxsan. Suhon ayaa soo gaaray wuxuuna weydiiyey sababta ay xalay taleefanka uga jawaabi weyday. Joyan ayaa si kulul ugu tiri, ma wax walba oo yar ayaan kuu soo sheegaa. Waxaan rabaa inaan xor noqdo. Markii Suhon uu habsiiyey, waxay ku tiri, aad baad u caajis badan tahay. Isla xilligaas, Han Si-jun ayaa mootadiisa ku soo istaagay. Joyanna si farxad leh ayay gadaal uga raacday. Suhon wuxuu dhulka ugu dhacay si xanuun badan isagoo ciil la hortaagan. Laakiin waxaa soo baxday in waxaas oo dhan ay riyo u ahaayeen Suhon. Habeenkaas Han Si-jun wuxuu aaday goobta lagu barto ciyaaraha si uu Suhon ula soo ciyaaro. Waxay go'aansadeen inay tartamaan. Wareegii koowaad Suhon ayaa Han Si-jun garabka ka tuuray oo dhulka ku dhuftay. Wareegii labaad Han Si-jun ayaa Suhon dhexda ka qabtay oo dhulka dhigay, laakiin Suhon ayaa lugihiisa u isticmaalay inuu luqunta kaga dhufto Han Si-jun ilaa uu ka qirtay in laga guulaystay. Maadaama laga guulaystay, Han Si-jun waa inuu fuliyaa codsiga Suhon. Suhon wuxuu ka codsaday Han Si-jun inuu wadada dhinaceeda ku heeso. Codka macaan ee Han Si-jun ayaa soo jiitay dad badan oo bilaabay inay muuqaalo ka duubaan. Suhonna isagoo dhoola cadaynaya ayuu daawanayay saaxiibkiisa. Intay biitsaha wada cunayeen, Suhon wuxuu weydiiyey Han Si-jun waxa uu isagu weydiisan lahaa haddii uu guulaysan lahaa. Han Si-jun wuxuu yidhi, waxaan rabay inaan Joyan u sheegto inaan jeclahay si ay iyadu si toos ah iigu diido, kadibna aan ka tanaasulo. Suhon wuu aamusay. Maalintii xigtay, iyadoo Suhon iyo Joyan ay suuqa joogaan, Han Si-jun ayaa soo wacay. Suhon isagoo raba inuu saaxiibkiisa fursad siiyo, wuxuu Joyan ku yidhi, bax oo la kulan Han Si-jun. Han Si-jun iyo Joyan markay kulmeen, Han Si-jun wuxuu ku yidhi, waxaan jeclahay gabar, laakiin gabadhaas waxay leedahay saaxiib. Joyan oo aan waxba garanayn ayaa ugu jawaabtay, haddaba orod oo ka soo dhacso. Han Si-jun qosol ayaa ka soo baxay. Markaasay Joyan istiri malaha wax baad garatay, waxayna weydiisay, ma gabadha fasalka nala dhigata ayaad ula jeedaa? Laakiin gabadhaas saaxiib bay leedahay, jacaylkaasna ma soo dhicsan kartid. Han Si-jun wuu yaabay, wuxuuna arkay in Joyan aysan marnaba dareensanayn in iyada loola jeedo. Maalintii xigtay, Joyan waxay samaysatay timo qurux badan, waxayna Suhon la aaday beerta xoolaha iyo maqaayad. Waxay xitaa sawireen wejiyada midba midka kale. Kadib waxay aadeen xeebta, iyagoo u muuqday kuwa aad u faraxsan oo qof kastaaba uu ka masayrayo. Laakiin farxaddaas weyn waxaa ka dambeeyey wax aysan filayn. Labadooduba ma aysan ogeyn in kala tag u muuqdo mid albaabka u soo garaacaya. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.